Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Samaya's Holistic Health channelkii ku saabsanaa caafimaadka jidhka, maskaxda iyo ruuxda. Soo noqosho fiican. Thank you so much for joining me again. Aad baad ugu mahadsantihiin. If you have any new subscriptions, welcome. Aad baan idin soo dhaweynaynaa taageerayaasheena horena. Thank you so much for your support. Jazakallahu khairan. Videogan muddo ayaan islahaa samey hadda dhowr waan kala yara raagay. waxay imtixaano kusii xiran maxaa la yidhahdaa caafimaadka xameytida. waxaa soo keen dambeysay anigoo waxaan idin tusayaa sida xameytida lasaga nadiifiyo. marka inshallah, that's what we're going to do today. Okay, maanta waxaan tusaysa xameytida lasaga nadiifinaysaan. laakiin ka hor inshallah tacaala intaanan gudagelin sida loo nadiifinayo, waxaan rabaa in Soomaali Maxamed halkan iga daawanaysa in marka hore aan wax yar ka wada hadalno, taasoo ku saabsan Soomaalidu badanka waxay aada ugu dheerayaan, waxbay iska sameeyaan iyagoon aada uga fikirin waxyaabaha caafimaadka ku saabsan ayaa ciyaar ma galo. qofku waxa fiican in uu isagu researchiga u gaaro, baaritaan u gaaro, isagu uu marka hore iska xil saaro uu sameeyo. oo yacni waxa kaliya meeshan aan kusoo duuba kaliya inaanu yacni sameynin, yacni isaga waxa isaga naftiisa qanciya oo isagu uu soo baaray, dhakhtarada soo weydiiyey, dhakhtarada kala duwan, qaar dabiici, qaar conventional medical doctorska ah. isagii oo qanacsan informationkan halkan aan soo bandhigin insha Allah tacaala ku kabanaya in uu markaa wixii uu siraahdo u fiican tahay inuu sameeyo. Please waxaan ka baryay in aanan waxaan iska soo iibsataan hal mar dalaq ka siinin. waxay u baahan tahay qofku inuu dietkiisa bedelo, waxaad u baahan tahay inaad u diyaar garowdid, waxaad u baahan tahay in aad yacnihi aad ilaalinaysid markaad sameynaysid. methodkan aan tusin doono, sidan xameytada loo nadiifiyo aan tusi doono, waa mid aan anigoo laftarkaygu sameyn jiray sanado badan. sanadkii 2 goor baan sameeyaa. maaha marka wax intaan meel kasoo akhriyay aan idinla soo wadaagay oo waxaan practical anigu aan u sameeyey oona waxba ku noqonin. laakiin adiga laftarkaagu isku mid ma nihin, isku jir ma nihin, isku caafimaad ma nihin. maxaa la yidhahdaa yacnihi sidaan anigu u sameyn waxaa laga yaabaa inaad si kale u sameysid ama wax khaladid. marka aada iyo aad bay muhiim u tahay in aad sidaan kuu idhaahdo u samey aad u sameysid, adigoo weliba la kaashanaya baaritaan adigu gaar adigu aad samaysatay. marka insha Allah tacaala videogan video gaaban ma aha. soo marka insha Allah soo qaada shaahaagii bilaa sonkorta ahaa. we don't drink shah, and we don't do sugar. Okay, go get your stevia, your videoga ka hadlaya caafimaadka waxaan ka wadaa in sonkoraha kala duwan, waxa sonkorta ku bedelan karto orodoo daawo insha Allah tacaala. taas aan tustoota waxyaabo aad sonkorta ku bedelan kartid. marka orod soo qaada shahaagii bilaa sonkortaha ama wixii aan sonkorta ahayn sonkorta bedelkeeda aad ku darsatay. Okay, insha Allah tacaala anigu waxaan meeshan u fadhiyaa inaan idinku dhiirageliyo sida aad naftiina aad u daweyn lahaydeen, saad u baran lahaydeen jidhkeena waxyaabaha yacnihi waxa ka khaldan, iyo sida dabiiciga aad u daweyn lahaydeen, iyo sida conventionalka aba. because ma fiicna inuu qofku dhinac kaliya mataqaanaa u bato, waa inuu qofku dheeli tirnaado. maxaa conventional medicine-ka aad iyo aad waa loogu baahan yahay. maxaa ka dabiicigana waa loo baahan yahay. qofku marka inuu intuu miisaamo meesha ku habboon uu mar walba ku hagaago ayaa aada iyo aada muhiim u ah. marka channelkayga ahaan yacnihi inkastoon u badanahay dabiiciga, kama soo horjeedo conventional medicine. Okay, laakiin mar uu soo ku habboon yahay baa jirta, mar uu medicineka dabiicigu ku habboon yahayna aada way jirtaa.
weliba ka dabiiciga wuxuu aad iyo aad ugu sii fiican yahay ka hortaga aad ugu sii fiican yahay marmar waxaa jirta oo qofku maxaa lahdaa isku daweyn karaba dabiiciga laakiin way kala duwan yihiin xanuunadu soo markaa waxyaabo aan ku habboonay baa jira dabiiciga markii waxay noqoto wax emergency oo kale ah kusoo booda so it's important aad bay muhiim u tahay inuu qofku maxaa lahdaa shirkiisa si fiican u dhageysanayo aad iska shaqaynaysid internally okay marka insha allah aan gudagalno videogana ma gaabnaan doono laakiin insha allah tacaala waxaan isku dayaa in aan intaan soo koobi karo aan soo koobo haddii ilaah raalli ka noqdo okay qalin soo qaado warqad soo qaado and it's time to take notes qoro sawir ka qaado u fiirso maxaa la yidhahdaa waxaan kuu sheegayo si fiican u dhagayso adigoon meel laga buuqayo joogin adigoo diyaar u ah in aad qoranaysid waa dawo waa medical procedure waa cleanse waa nadiifin aad xamiitada dhagaxanta kasoo shubaysid ciyaar ma gelayso sababta ugu celcelinayaan waxa weeyaan min fadlik please follow it as I say it la kaashana your own research but you must follow it okay haddaad khaladid ma shaqaynayo waxaana laga yaabaa inaad waxis yeeshid marka it's really important in aad that you are that you guys are following okay all right so okay hadalkeena ku dheeraynin okay waxaan eegayaa warqadihii aan kusoo qortay waxaan idin sheegayo ma aha wax ciyaar gala ma aha waxaan rabo inaan xusuustada ka keeno waa muhiim inaan idin akhriyo exactly saan u qoray aanan waxna ka boodin soo marka waad raalli waad iga hanaysaan waanad ii sabri doontaan insha allah tacaala ila socda qalin soo qaata warqad soo qaata take notes okay here we go okay waxyaabaha haddaba aad u baahan tihiin horta idin tuso okay ama inaan oranayo sug korto okay horta waxaan rabaa inaan kala hadlo xameytida dhagxanta ku jira ee loo yaqaano dhagxanta laba wax bay ka yimaadaan okay labada wax waxa weeyaan cholesterol stones oo ah qofka markuu jirkiisa cholesterolku aadka ugu badan tahay okay ayay mataqaanaa xameytida dhagxantaasi ku samaysmadaan cholesterol high cholesterol midabkooduna waxa weeyaan yellow green okay yellow green waa akhtar iyo haruud ma akhtar iyo jaallo kolba saa u taqaanin weeyaan dhagxantaas haddii xameytida markaad iska soo shubtid aragtid dhagxan akhtar ah iyo akhtar iyo yellow ah isku jira haruud waxa weeyaan cholesterol high cholesterol okay ama cholesterol stones talabaadna waxaa la yidhaahdaa way madow yihiin dhagxanta labaadna way madow yihiin waxaana weeyaan waxay ka timaadaa bilirubin okay bilirubinku the causes of bilirubin in your gallbladder or your gallstones are psoriasis I'm sorry blood disorders or blood or bile duct infection okay ayay ka timaadaa marka labadaba haddaad aragtid haddii kuwa madow aragtid yacni dhiig fadhiyo kale la moodo ama wax madow dhagxan la moodo make sure inaad doctorka tagtid aad soo ogaatid sababta
ay dhagxanta madow ugu jiraan meesha because cholesterol ma aha. Okay, waxaa laga yaabaa in dhiigaaga infection ku jiro, waxaa laga yaabaa in maxaa la dhahdaa meesha u dhaxaysa beerka iyo xameetida infection kaa galay. Marka hubso hadhow markaad dhagxanta isku soo shubtid ka waswasin inaad eegtid aad u fiirsatid يعني medical clues اسمه قبل. مركز 3 different ways بوقفكو ونظيفين كرها حميتي ذا. صدح ذا هرتو أنكبر قرانو انتانا ندم توسين ingredients كأي وحال استعمالي يسال السوق الضريو إن شاء الله تعالى. مركا قفكو استعمال كرا دوايين medications medications كاس أو إن محل هذا قفكو قاضنا يو إلى 2 سنة أي بدنك كوش قيسا يعني هي قفكو مركو تشوشين بدنك ويسون نقدان لك حنتو مركب ويسون نقدان مركز دوايين لون سمي ويترتاء قفكو لقي كرا اوكي وحنا كو خرنتahay إن دكتورك كو قريي مكوسيني أمسكو مسينيو مكو شيء أمسكو مشيء. That's the question. You gotta do your own research. Okay, you gotta do your own research. قفكو طلبات وقفكو إسقالي كرا and you can do surgery أتقالي كرتا and دكتورة waxaa jira hadaad ku tirahdid ay ku arkaan in aad research ay soo samaysay aad soo baadhay aad hubtid inaad xameetada iska bixinaynin laakiin aad doonaysa in inta la qalo dhagxanta laga soo guro dhaqtara ku sameeyaan way jiraan laakiin waxay ku xiran tahay naftaada ku kalsoon tahay inaad dhakhtarka ka diidi kartid amarku ku siiyo kale. For instance haddii aanad naftaada ku kalsoonayn waxay dareemayaan in okay kolba say doonaan bay ku oranayaan ama kolba waxay doonaan bay kugu talinayaan. marka talo aday ka soo godo haday tahay waxaad oran kartaa iqala dhagxanta ka soo shuba xamiitida iga saarina. dhakhtarna ku diidayaan dhakhtarna way ku ogolaanayaan. markaas that's why it's really important inaad dhakhtarkaaga si fiican aad u baratid waxyaabo badan aad su'aalo badan weydiisid aad ogaatid waliba waqti uu ka qalan jibin dhakhtarnimada. qaar waxa jira ka qalan jibin dhakhtarnimada 30 sano ka hor oo markii 30 sano ka hor ay dhakhtarka dhiganayeen buugaagtii la qoray 10 sano ka sii horeysay ilaa 40 sano ka hor buugaag qornaa iyo medicalka ay ku barteen oo hadda completely absolutely outdated. So marka it's important inaad waliba lahaatid dhakhtar in maxaa la yiraahdaa sorry waqti dhow qalan shabiyo aan aadna u dhaweyn adigu dee experience fiican leh in new medical kan la ogaadayna ka warqaba. Okay, so medication, surgery, right? dawooyin ama wasqali karaa talabaadna waa isqaloodi. ta saddexaadna waxa weeyaan in uu qofku hadda waxaan idin tusayaa aad samaysid. Okay, this natural cleanse. Okay, you can do this natural cleanse. Taas waa ta saddexaad. waxaan oran lahaa qofka hadduu natural cleanse inuu sameeyo rabo inuu qofku u diyaar garoobo jirkiisa u diyaar garoobo healthy diet uu sii bilaabo maxaa la yidhahdaa biyaha uu badsado isku ogeyn in ay ku jiraan qofku wuxuu tegi karaa dhakhtarka oo wuxuu ku oran karaa ultrasound saara I want to know if I have gallstones. Okay, dhakhtarka ogol way jiraan qaar ku oranaya inta laga qabanaya inay igu soo noqon way jiraan oo qaar badan baa ku oranaya haddaan lagu haynin mar rabo inaan ku baadho laakiin haddaad ku celcelisaa tirahdid I need inaad ultrasound saartid to see if I have gallstones qaar ka ogolanaya way jiraan. Again, it all depends on what kind of doctor you have. Okay. Okay, so saddexda ways baa in qofku uu xamiitay isaga nadiifin karaa. ta saddexaad weeyaan ta hadda intuusayaa insha Allah tacaala aan gudagalno biidni illah. videogana ma gaabna, so insha Allah tacaala we'll get something to drink, sit comfortably, and let's take good notes. Okay, okay, ingredients. maxaa loo baahan yahay hadaba in iskaga soo shubo dhagxanta. Okay, xabad xabad baan idin tusayaa. marka horta waxaad u baahan tihiin you need olive oil.
okay? Organic olive oil. Organic olive oil. It doesn't have to be Kirkland brand. قصب ما هم قاعدين لهاتو لكن مهم دوين هاتو سليد معصرة أورجانيكا أو اللي بتن بهالكم مدو كترتقة وسليد أدقو مدو okay it has to be organic and it has to be extra virgin olive oil okay that's number 1 olive oil وحاضو باهن تهاي Epsom salt Epsom salt. Oops, sorry. Okay, let's see. Epsom salt. Epsom salt. Okay. طبعا كنت الإحدى دي تسوي قد الله علي لكن ساسوي أكتها. بوضو. Epsom salt بالي هذا. It is magnesium sulfate. Okay, it's pure magnesium sulfate. marka waxaad soo iibsanaysaa midda loogu talagalay in la cuno please min fadlik soo iibsanin tan loogu talagalay in cagaha lagu shubo in for soaking your bath and soaking your feet okay please don't buy that one make sure you get the one that is designed for internal laxative use okay بعد أي كل طلع عليه كأرنا نسوي دوين كل الصوتي عفوا guys بعد إيجا النقطة pure magnesium sulfate okay for relief in I don't know I can't read backwards but for soothing baths or mild laxative so qaar waxa jira lagu iibiyo dukaanada oo lagu daray cadaro iyo waxyaabo oo lagu talagalay in badanka dumarku isticmaalaan agaha ay dhaxgashadaan biyo ku shubtaan ama baadka ay ku shubtaan so make sure you get the one that is for internal okay I got mine from PCC okay I don't know milixda noocan magacaas la yiraahdo in horta ma hore milix mar dhamayso okay Epsom salt waa la iska yiraahdaa magaceedu scientific magaceedu waxa la sii yiraahdaa in waxa la yiraahdaa magnesium sulfate hold on guys oops okay عفوا so Epsom salt okay Epsom salt please get Epsom نبدأ عجها أنا إنتو سدونا إذن صوب حمدان وحيركب بعد إن